dagaal baynoo bilowday mana noqon doono midaynu iska daawano anagu dagaal ma jeclin wuxuu yahayna waan naqaanaa laakiin haddii noo kalifto dadka jawaaba ayaanu nahay kana midha dhaliya ayaanu nahay wiil arabikhi iyo haruur beerto gebile iyo wajaale dhexdood baa halkan kuu jooga iyo baki iyo ka yimi iyo xariirad baa halkan kuu jooga wuxuu ku leeyahay unaday halkan kugu xukumi dalka ingiriis baa leh ka taliyaha ee hadlayay maalin dhawad baa la magacaabay qurbahana uu ka yimid wixii wadanka ka dhacayna waxba kama ogeyn kelmaduu wax ku hadlay mid hanjabaad ba ahayd midna caybu ka dhigay kuwa cayda ka dhigay waxa kamid ah soo aniga ii jeeda iyo ciidankaba hadhuudh arabikhi hunno saddexdaa shay buu israaciyey hadhuudhka malaha macno waanu garanayne waa wixii masago la odhan jiray oo malaha hadhuudhkuu garan waayey amba bederka la odhan jiray arabikhidana wuu garan waaye waa galley haddaanu garanayn galley baa loo yaqaanaa galley ha u barto hunnana waa abowe oo kale waa abowe une yaanu ceeb u qaadayn waa saddexdaa arrimood hadhuudhka iyo galleyda iyo masangada iyo digirtu waa waxaynu hidaha u lahayna waxaynu leenahay bariiska iyo baastada iyo isagu ma beeran laakiin waxaasaynu inagu dhaqankeenu yahay oo waa main foodkeena waa cuntadeena marka waan ku faanayaa waanu ku faanaa ceeb maahaynaysa ha ogaado haddaanu garanayna uu magaca garan waayna magacu waa kaase waa galley iyo masago iyo abowe Somaliland waxay ku caan baxday inay noqoto hoyga magangelinta argagixisada dhaqaalay ku bixisaa waxa ummadda Soomaaliyeed lagu gumaadayo ama koonfur ha noqoto ama bari ha noqoto Somaliland iyada gacan siisa Somaliland argagixisada ayay magangelisaa anaga walna yaqaana taariikh adu adoon sameeyay maaha wararkii ugu dambeeyay ee soo saartay Mareykanku soo saaray 8 qof uu sheegay 8 waa beeshin ahayd aagin ahayd nin Somaliland kuma jirin taas cadeynaysa waxaynu kala nahay marka waxa adu hoos isku eeg media hana akhriso international waxay ka qoreen marka waxaan magacoodina waa kuwan halkaa ku yaala waa kuwa media ku yaala 8 qof ee la calaamadeeyay marka hadu isku yaag wax hoostaada yaala anaga Somaliland qofna kaga ma jiro ragga la sheegayo marka dib isku noqo Soomaali si gaarana waxaynu joognaa calanka buluuga baynu inaynu karaamayno ita ninka diidan oo maxaa la yiraahdaa Soomaalinimada diidan oo ilaahay anigu waa ka sareeyaa dadka oo anigu dadka intiisa kalena aniga iska leh iyo dhulkaba kaasaynu diidan wax badan baa soo dhacay ka waraysan raggii ka horeeyay taariikhda waa la darsayaa ka horeyso hanjabaadana anagu dadu jilcaya ma yihin haddaba nu diyaar nahay haddaad adigu waxbaad ururinaysaa anagu diyaar baanu nahay laakiin kuma degdegna dagaalka bilaa dagaalkaada abaabulayso wax badan ku seegtay adigu anaga waxba noo soo kordhay waan kula iska daahan jabaada darisnimada ilaali
nabadgelyada ilaali sidaasaa raggii horeba lagu wada shaqaynayay oo rag waayeel ay u ahaayeen sidii taliyihii kaa horreeyey yaasiin cumar dheeraba oo ahaa iyo kuwii kasii horreeyey siciid dheere ay ahaayeen nabadgelyada ka shaqeeya raggaana wax weydii wixii la isku hayo si nabadgelya ayaa loo xalilaa laakiin qori laguma xalilo annaguna ragga dagaalka garanaya wuxuu yahay oo had iyo goraalo ka fogaada toolan uu kalifa mooyaan ayaan nahay ragga aad wax u sheegaysaana waa macallimiintaadii koorsa sagaalaad baad ahayd kulliyaddaanu kuugu macallin ahayn waa laga xishoodaa macallimiintaada inaad xishootaa wanaagsan annagu waan ku faraxsanaya ardaygaygoo jaan noqday oo taliya ciidan noqday oo weliba koorsa sagaalaad ah ti oo raggii kale oo dhadood joogaan ee madaxda ahaan jiray haddiise nasiibku keenay ka xishoo macallimiintaada iyo madaxdaada dadka puntland waxaan leenahay waa nabadgelyada iyo jaarnimada ilaaliya sida wasiirada qaarkood ku hadlayaan amba agaasimayaasha guud qaarkood ku hadlayaan hadallada xunxun ee kanaya hadal waxa la yidhi hadal xumi nabadgelyana wuu kaga fogeeya colna waxba kama taro waxaan ku leeyahay ninkaa ugu dambeeyey wuxuu idhahda raawi ma dida hargoolow ha igu tumi durmaanada iyo daasadaha maran annagu kuwa sidaa loola hadla ma yihin dib hadalkaaga dib uga noqo boocanay noqotay kuwa jooga waa ciidankii waa ciidan qaran laakiin waxay u dhasheen beesha waa ciidan qaran beesha haddii la waxyeelayana faraha ka laaban mayno waa diyaar baanu nahay waa ciidan qaran oo degaankaasa ciddii weerartaa waa ciidanka qaranka soo weerartay waana difaacnaa